sheeg abwaankii tiriyey gabayga sheeg midabka faraska uu doortay sidoo kalena sheeg faraska loo yaqaana afar midablaha waa 3 su'aalood oo is saaran gabaygan waxa tiriyey nin abwaan ah xilli uu faras doonayay ashkir orodkii waa maalintuu oo faweyn yahay ololaha nin jecel baan ahay yuusan iimanin afar midable oofti iyo fanki iyo alaxdu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha kanu itaal roone og subax lamoodiyow waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro wadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabinayay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabinayay dhiigo aan ku ardina waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho adaabta lahayd ay mar walba uga qayb qaadanayeen tartanka inta kadib waxa caawa goobta isku arki doona kollay ugu dambeeyay iyaga soo xiri doona caawa tartankii muddo dheer soo socday waxaan rajaynayaa insha Allah in qolo waliba ay diyaar garow kaafiya soo sameysay waxaan bogaadinayaa diyaar garowgooda ay soo sameeyeen labada gruuba sidoo kale waxaan rajaynayaa in qolo waliba ay heegan u yihiin in ay caawa aqoontooda halkan kusoo bandhigaan innaguna aynu goobjoog u ahaano dhanka kale waxa iyadana aan wax yar xasuusinaynaa shuruucda kooban ee tartanka sida qorshaha walba ahaa ardaduna ay yaqaaneen leslana yaqaanay baad reer Gambool su'aaluhu waxay noqon doonaan in walba iyo Joycekiis labada boqshadood ay ku kala jiraan waa A iyo B waxaan ardada ugu yeeri doonaa inay kala qaataan nasiibkooda oo ah A iyo B kan uu ku hagaagi doona gruupka A qaata waxaan weydiin doonaa boqshada A su'aalaha ku jira gruupka B qaatana waxaan weydiin doonaa boqshada B waxa ku jira oo mid walba hortiin lagu furi doono su'aaluhu waa su'aalaha isu dheelitiran waa 10 su'aalood oo 5 iyo 5 ah oo laba waliba isu dhigmaan su'aalahan haddii su'aal xisaab ay gruupku aado gruupka kalena su'aal xisaab ayaa iyagana ku aadi doonta haddii su'aal af Soomaaliya gruupku aado gruupka kalena waxa ugu jirta su'aal kale af Soomaaliya sadarteed waa su'aalo parallel oo isu dhigan oo si siman loogu tartami doono insha Allah qolo walbana ay aqoontooda ku soo bandhigi doonaan waxa muhiim ah su'aashu waqtigeedu waa sida aynu isla ogeyn
waa 2 daqiiqo ayay noqon doontaa labada group ayna sida ku baraarugsanaada waa muhiim sidoo kale waxaan iyadana aan rabaa inaan raaciyo qodobkaas su'aalaha xisaabta oo kale waxaan isla garanay 3 daqiiqo in laga dhigo maadaama shaqo badan ay ku jirto saadreed iyadu waa wax exceptional su'aashaas ayaa ku jirta su'aalaha xisaabta su'aaluhu way qoran yihiin su'aal kasta la soo qaato labada qolob waxa la siin doonaa warqadaha qolada su'aasha xaq u leh iyo qolada ka faa'iideysan doonta labaduba waxay heli doonaan su'aasha oo qoran halkaas bay ka akhrisan doonaan sidoo kale waa loo akhrin doonaa daawadayaasha iyo goobjoogayaasha dhamaanba tartanku qaabkaas buu noqon doonaa dabcan tartanku kuma cusba labada gruuba waxaan rajaynaynaa marka insha Allah in aynu si habsami leh uga wada qayb qaadano dhawaan ayuu inoo bilaaban doonaa labada kalaasna waxaan rajaynayaa diyaar garowga ugu dambeeya inay sameeyaan gruub walba warqadahoodii waa haystaan Soomaa ayaduna diyaar baatin Soomaa tartanku waa inoo bilaabanaya biidnillah insha Allah labadiina waad guuleysan doontaan biidnillah kiina guusha waarana arki doonaa ugu dambeyn kaalinta koowaad ee xiriirsada waxa xusid mudan galaaska Form 4B artist iyaguna sidoo inay xaalay ay gudoomeen koobkii kubadda marka caawana waxay u fadhiyaan inay koobkii aqoontan ku darsadaan marka waa rakarooni haday ku darsadaan hadii ay ka hambeeyaanna waa sidii rag lahaan jiray marka biidnillah waa wada joognaa hadii Allah idmo waxaan rajaynayaa hadda in labada kalaasba soo dirsadaan labadii arday ee nasiibka u kala qaadi lahaa bal boqoshada ku soo aadi doonta ma eeba ama biiba iyadoo wax isku mid ah isku aqoon ay ku wada jiraan marka soo dhawaada labada arday waxaan ku wareejinayaa hadda insha Allah xiriiriyaha tartanka oo si toos ah inoo ku sii wadi doono insha Allah wixii halka ka dambeeya waxaynoo bilaabanaya su'aalihii Form 4C Science ayaa qaatay waraaqdii ay ku qorayd iyaga ayaa horeyn doona waa 5 su'aalood dhinaceedna kale oo saaxiibadaana waxa ku jira 5 su'aalood oo kuwa u beegtooma waxaad la soo baxaysaa su'aasha ugu horeysa adiga ayaa gacantaada kula soo baxaya su'aashaada koowaad soo dirso asal kala soo hal xabo ka mid ah hagaag waxa uu la soo baxay su'aashii ugu horeysay waa su'aal ku qoran afka Soomaaliga su'aashaasi waqtigeedu waa 2 daqiiqo sidii gudiga tartanku sheegay waxay ku leedahay u kala saar ugaadhan yaris iyo ishin gumburi deero bayrac sagaaro gorayo cawl biciid laba qolle u kala saar ugaadhan ishin iyo yaris gumburi deero bayrac sagaaro gorayo cawl biciid laba qolle marka ugu dambaysa u kala saar ugaadhan yaris iyo ishin gumburi deero bayrac sagaaro gorayo cawl biciid iyo laba qolle waa iga soo wareegtay waqtigiinuna waa idiin bilowday waa 2 daqiiqo ka faa'iideysa ayay leedahay su'aashuna haddii ay saaxiibadaas soo hareer marto fasalka kale waa ka faa'iideysan karaa sidii awal baynu isku ogeyn su'aashu waa 2 dhibcood ka faa'iideysigeeduna waa 1 dhibic waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa ayaa waqtigii idinka hadhay
لا هذا نوعي تاجريش وترتمياشا فور سيسينيس سؤال حقول جوابنا إشكال وحاه جمبري قرية لبقول بعيد يرسنا وحاه ديرة بيرة سجارة يعول hagaag waxaan ku wareejinayaa guddiga tartamaadka hambalyo koonfursi saynay su-aashoodii labaan ugu horreysay waa sax kala go mina qaado mina saaxiibada alaale hagaag intaada la tag marka okay fasalka fonfor BRT su-aashooda koowaad iyaguna waa su-aal business ah sidoo kale waa 2 daqiiqo waxay ku leedahay a business has the following items in it owner's equity is equal $600,000 and total liabilities is equal $1,400,000. What is the value of the asset in this business? waxay ku leedahay su-aashu mar kale a business has the following items in it owner's equity is equal $600,000 and total liabilities is equal $1,400,000. marka ugu dambaysa aan ku celiyo a business has the following items in it owner's equity is equal $600,000 and the total liabilities is equal $1,400,000. What is the value of the asset in this business? waa iga soo wareegtay labadii daqiiqana waa idiin bilowdeen nasiib wanaagsan wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago 25 second ayaa waqtiga idinka hadhay su-aashu waxay ku maqan tahay saaxiibada 4B artists 20 second wasiir soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم أنا فصل فور بي آرتس جوابته وحكيت جوابنا أصدق وحاول بدي هلو مليون hagaag su-aasha ay bixiyeen 4B artists jawaabteeda sax iyo qalad waxaan ku wareejinayaa guddiga tartanka وجواب صح hambalyo awguuriyo forces highness sidaadii ula bax su-aashaada nasiibkaaga ayaa go'aaminaya su-aashaadu waxay noqon doonto hagaag waa su-aal tarbiyat alislaamiya ah waxay ku leedahay اذكر عدة كل من النساء الآتية 1 المتوفى عنها زوجها ب اليائسة ت الحامل المتوفى عنها زوجها الصغيرة أنكو عليا مركب قدام بيسا مركب لبعض اذكر عدة كل من النساء الآتية المتوفى عنها زوجها اليائسة الحامل المتوفى عنها زوجها الصغيرة akuwaaro wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina بسم الله سؤال waxaa uga jawaabaynaa
متوفى عنها زوجها و4 أشهر و10 أيام. اليائسة 3 أشهر. حامل متوفى عنها زوجها ووضع الحمل. الصغيرة 3 أشهر. jawaabta ay bixisay ardaydaasi sax iyo khalad waxaan ku wareejinayaa guddiga tartanka. وجواب كامل ما شاء الله. Ambaliyo awguuriyo phobia artist su'aashiina iyo markiina ilaa iyo hadda tartanku wuxuu ku socdaa dardar adag kala go hagaag iyaduna sidii oo kale waa su'aal tarbiyada التربية الإسلامية نسيب كاسكو أدادي وحيكون هذا ما حكم الطلاق كل من المجنون الشاد السفيه الهازل الغضبان الذي أغرق عقله الغضب أنكو علي ما حكم الطلاق كل من المجنون الشاد السفيه الهازل الغضبان الذي أغرق عقله الغضب مركب قدام بيسا ما حكم الطلاق كل من المجنون الشاد السفيه الهازل الغضبان الذي أغرق عقله الغضب ويقى سوريكتين أتفهمتين ورجينيا ودنكينا وحبرتا oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno الطلاق كل من المجنون لا يقع الطلاق. الجاد يقع الطلاق. السفيه لا يقع الطلاق. الهازل يقع الطلاق. قضبان الذي أغلق القولة القضب ولا يقع الطلاق. جواب طيب حسين رضيضة سيان كوري تشي صحيح غلط قدية جواب لما يسرع بقولك وبقول همبلية وحب الله يسوء هم بين مايو الكاه الله يسوء مات فورسي ساينس سؤاشينا لبا حسيدي وكلا نسيبك أقول حقوق سؤال ديو هاجاج سؤال شائقاتين وسؤال في صوماليا وسؤال دقنا وحيكون هذا شرح إريا دقميت كان في صوماليا كو حبور لابو هيعو صدح ترسيس أفر حمل شن تموتي شرح إريا دقميت كان في صوماليا كو حبور لابو هيعو صدح ترسيس أفر حمل شن تموتي مركا قد ما يسان كو عليو شرح إريا دقميت كان في صوماليا كو حبور لابو هيعو صدح ترسيس أفر حمل شن تموتي ويقص وريكتي إن أتقرتين ورجين يا وقتين إن وايدين بالوضع ودنكينا وحبرتا oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago tartamayaasha Forces Science iyo taageerayaasha su'aasha waxay ku jawaabayaan xabawar waxa la yiraahdaa marka ariga yani xilliga jiilaalka waa la isticmaalaa marka ariga laga kaxeeyo reerka oo meel yani ay wataan dad gaar oo aqal iyo maanto iyo yani caruur iyo waxa soo kale wadan baa la yiraahdaa waxa kaloo loo yaqaanaa haragle ariga loo yaqaanay heeco waa marka neel hooyada ay ka dhimatay oo la nuujiyo lax kale ama si kale wax loo siiyo yani waa neef yar oo hooyadeed dhimatay waxa la yiraahdaa heeco tirsiis
yacni waa ido buurbuuran oo u diyaara yacni in markaa wankii lagu daro oo si mataqaanaa ay u rimaan marka waa ido buurbuuran iyaguna si markii waxay u diyaar yihiin in wankii lagu daro oo mataqaanaayay yacni waa ido buurbuuran u diyaara in wankan lagu daro si mataqaanaayay ay markaa wanka si gaar loogu soco xamil waxaa la yidhahdaa waxa wanka loo xiro si uusan u oslin idaha tomootina waxaa la yidhahdaa neefka dhintay hilibkiisa taas ardadaas ay bixiyeen aan ku wareejiyo guddiga tartanka sax iyo qalad waxa ay noqon doonto hagaag hambaliyo awguuriyo hambaliyo fobi artist su-aashiinniyo markiina waxba la isu reeban maayo cirkaa la isku cunaa su'aalaha af soomaaliga ah ayaa isdoondoonanaya su-aasha forcy science fobi artist u soo baxday iyadna waxa ay leedahay dhammaystir mahmaahadan saddexleyda ah saddex lagu waaniyey waa u liidnimo caalim cibaado lagu waaniyey dhammaystir mahmaahdan saddexleyda ah saddex lagu waaniyey waa u liidnimo caalim cibaado lagu waaniyey dhammaystir mahmaahdan saddexleyda ah saddex lagu waaniyey waa u liidnimo caalim cibaado lagu waaniyey labada ku xiga ayaa lagaa rabaa nabad iyo warsi wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno annagoo ah fasalka fofor b arts waxaanu su-aasha kaga warcelinaynaa caalim cibaado lagu waaniyey caalim cibaado lagu waaniyey waa u liidnimo cadaalad xishood ama casrad xishood lagu waaniyeyna waa u liidnimo caaqil cadaalad lagu waaniyeyna waa u liidnimo caalim cibaado lagu waaniyey waa u liidnimo cadrad xishood lagu waaniyey waa u liidnimo caaqil ama qaadi cadaalad lagu waaniyeyna waa u liidnimo su-aashaasi waxaan ku wareejinayaa guddiga sax iyo qalad ka faa'idaysi su-aashaasi b arts waa soo hareer martay forcy science ka faa'idaysigu waqti male ka faa'idaysigu waqti male waa su-aashii ugu horreysay oo la gafo bismillahi raxmaan raxiim haddaanu nahay taageerayaasha forcy science waxaan su-aasha uga jawaabanaa waxaa weeye labada dhiman cadrad xishood lagu waaniyey waa u ceeb iyo tan kale oo ah ciroole laga waaniyey sina laga waaniyey iyaguna kama faa'idaysan okay saddex lagu waaniyey waa u liidnimo caalim cibaado lagu waaniyey ciroole dantiis lagu waaniyey iyo cadarad xishood lagu waaniyey fobi arts laba ka mid ayay saxeen hal mid baa hareer martay nasiib wanaagsan tartanku weli waa socdaa dhib male su-aasha ay qaateen fasalkaasi waa su-aal xisaab ah waxay ku leedahay find the limit of the function lim x to approach 4 x square minus x minus 12 divided by x minus 4 aan ku celiya mar labaad find the limit of the function lim x approach to 4 x square minus x minus 12 divided by x minus 4 marka ugu dambaysa aan ku celiyo find the limit of the function lim x approach to 4 x square minus x minus 12 divided by x minus 4 waa iga soo wareegay wakhtigiinnuna waa 3 daqiiqo sidii hore laydinku sheegay nasiib wanaagsan wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban
hal daqiiqo iyo 40 second ayaa weydiin haray waqtigii jawaab baa loo taagan yahay x waxay la mid tahay 7 iyadoo ka shaqaysana waatan x waxay la mid tahay 7 su-aasha ay ka bixiyeen ardadaasi jawaabta sax iyo khalad waxaan ku wareejinayaa guddiga tartanka waa jawaab u taala ka faa'iidaysi ka faa'iidaysigu waqti ma leh be artist x waxay la mid tahay 0 iyaguna kama faa'iidaysan jawaabta saxda aynu hello bismillaah su-aashu waxay ahayd su-aal liima waxaa lagu samaynayaa marka horeysa wax la dhaho factorizationka marka lagu sameeyo ayaa substitutionka la samaynayaa gruupkan waxay khaldeen substitutionka ansarka soo baxaya way sameeyeen gruupkan direct substitution wax la sameeyay sameeyeen kadib meeshay everto soo baxayso waxaa la dhahaa non exist baa la dhahaa limitka xilliga sidaa daraadeed wax intii laga soo shaqeeyay la leeyahay waxan ma jiro dunida kama dhacayso waxa loo baahan yahay value waxa loo baahan yahay process la dhaho factorizationka markii la maro substitution baa lagu samaynayaa markii la sameeyana jawaabtu waxay noqonaysaa 9 insha Allah waxaan dhigi doonaa iyadoo shaqaysan waqtiga qaadanaysa in laga shaqeeyo hagaag haye mar kale iyo numberkiina 4B artists mar kale iyo numberkiina tartanku ilaa hadda si habsamin ayuu socdaa hagaag 4B artistsna waxaa ku hagaagtay su-aasheedii kale find the limit of the function lim x approach to 5 x square minus x minus 20 divided by x minus 5 aan mar labaad ku celiyo find the limit of the function lim x approach to 5 x square minus x minus 20 divided by x minus 5 marka ugu dambaysa aan ku celiyo find the limit of the function lim x approach to 5 x square divided by x fx square minus x minus 20 divided by x minus 5 iyaga oo qoran ayaad haysataan waana iga soo wareegtay 3 daqiiqo ayaad haysataa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaano waadankeenu guul wacan jawaabta waxay noqonaysaa 9 su-aashaa sax iyo khalad iyadna aan guddiga ku wareejiyo mar kale waa jawaab saxa hagaag hambaliyo 4B artists aan ku soconno 4C science su-aashooda ku xigta waa su-aal business ah waxay ku leedahay a business has the following items in it land is equal 1 million machinery is equal $20,000 cash is equal $10,000 and loan is equal $500,000 what is the value of the capital aan ku celiyo
A business has the following items in it. Land is equal 1 million. Machinery is equal to $20,000. Cash is equal $10,000. Loan is equal $500,000. What is the value of the capital? Marka ugu dambaysa aan ku celiyo. A business has the following items in it. Land is equal $1 million. Machinery is equal to $20,000. Cash is equal $10,000. Loan is equal $500,000. What's the value of the capital? Waa iga soo wareeg. wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsanayno waa 530,000 ba soo baxay jawaabta ugu dambaysa. Try to answer as in deep because of our 530,000 sanza. jawaabtaas ay bixiyeen ardadaas sax iyo qalad aan ku wareejiyay gudiga. waa jawaab sax ah mabruuk. hagaag waa jawaab sax ah. fasalka 4B artist su'aashii ugu dambeysay iska fadhi waa ku gowracan tahay sax iyo qaladba. waxa ay noqoto adiga ayaa iska leh. haddii jin ka soo baxo adiga ayaa qaadanaya. hagaag su'aashaani waa su'aal iyadna Soomaali ah. waa su'aal suugaana. waxay ku leedahay gabaygan waxaa tiriyey nin abwaan ah xilli uu faras doonayay. waxa uu yidhi ashkir orodkii waa maalintuu oofa weyn yahaye ololaha nin jecel baan ahaye yuusan ii imanin. afar midable oofti iyo fankii iyo adhaxdu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha kanu itaal roone og subax lamoodiow baror ubaxle baan dooni. sheeg abwaankii tiriyey gabayga. sheeg midabka faraska uu doortay. sidoo kalena sheeg faraska loo yaqaana afar midablaha. waa 3 su'aalood is saaran. gabaygan waxaa tiriyey nin abwaan ah xilli uu faras doonayay. ashkir orodkii waa maalintuu oofa weyn yahaye ololaha nin jecel baan ahaye yuusan ii imanin. afar midable oofti iyo fankii iyo adhaxdu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha kanu itaal roone og subax lamoodiow ban. sidoo kalena sheeg nooca faras midabkiisa ee uu doortay. sidoo kalena sheeg faraska loo yaqaana afar midablaha. aan ku celiyo marka ugu dambaysa gabaygan waxaa tiriyey nin abwaan ah xilli uu faras doonayey. waxa uuna yidhi ashkiir orodkii waa maalintuu oofa weyn yahaye ololaha nin jecel baan ahaye yuusan ii imanin. afar midable ooftiyo fankiyo adhaxdu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha kanu itaal roone og subax lamoodiow baror ubaxle baan doone. sheeg abwaankii tiriyey gabaygan. sheegna midabka faraska uu doortay. sidoo kalena sheeg nooca faras ee loo yaqaana afar midablaha. waa iga soo wareegtay 2 daqiiqo ayaa idiin bilowda. iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankiin guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago. cadaaladna meesha waa u nimid. marka cadaaladda inaan ilaalino oo ardayga kan waxbaa la soo baray waxbuu yaqaanaa. wax ka khaldan haddaad tidhaahdo waa sax kan la fadhiya wuxuu dhahayaa oni usaa la ima barin. wax u saxan haddaad tidhaahdo waa khaladna oo haddaa wixii noo dhigaa khaldanaaya bay baashu noqonaysaa. waxaan marka rabaa inaan dib ugu celiyo guddiga jawaabtii ay form 4 C saynis ka bixiyeen xisaabta ayaa guddigu tacliiq ka soo celiyey. marka waxa weeye iyadoo saxan iyo sidii ahayd ayaan ku wareejinayaa guddiga inay ku dhawaaqaan insha Allah. kadibna natiijada insha Allah dhammaan waa in raalli lagu noqdaa. way cadaalad asaas. bismillaahir rahmaanir rahiim. raalli hada wax yar as dhegeysano. error yar baa jira oo intii tartanku hadda socday dhacay. waana iska bini aadam iyo hawshiis. su'aashii lambar 4 ee la weydiiyey kalaaska form 4 C science ayaa su'aashu waxay su'aal limid ah
way ka shaqeeyeen waxayna kaga jawaabeen natiijadu inay soo baxayso 7 waanu ka khaladnay sababtuna waxay ahayd natiijada anaga noo qoran baa khaldanayd natiijada noo qorani waa 9 su-aasha kale ayaa 9 soo baxayay markii aanu computerka gelinaynay ayaanu isdaba marinay labada su-aalo jawaabahooda laakiinse referensigiina waan haysanaa oo warqadii referensiga ahayd aanu macallin ka soo qaadnay macallin walba su-aashiisa maalka ku soo qornay iyadoo shaqadeedii dhammaystiran tahay macallinkii xisaabtana sidoo kale waana la fadhiyaa jawaabta markii la bixiyey kadib baanu niri malaha waxbaas yar khaldan waa macallin xisaabeed iyo gadiisa heelku kaga shaqeeyey kadibna referensiga haddana dib ugu laabanay double check baan samaynay waxaa noo soo baxday annagu markaanu qoraynay labada su-aalood inaanu ansarka u kala bedelay su-aaluhu waa saxan yihiin ardaduna siday uga shaqeeyeen labaduba waa saxan yihiin laakiin annaga ansarka isdaba marinay saa darteed halkaa waxaa ka soo laabtay force science labadii dhibcood ee markii hore aanu ka khaladnay ayay halkaa ku heleen intaa kadib hadda ayaanu marka waxaan u gudbaynaa natiijada marka waxaynu wada sugnaa waa natiijada intaas ayaanu correction ku samaynay dib u sixid waana khalad bani aadam laakiinse khaladka waxa ugu khayroon kan laga daba tago aan kugu fogaan marka waa ilaahay maadi haddaanu hadda haleelaanu xasuusanay ilaahay fadligii weeye waxaan rajaynaynaa marka insha allah waxaynu wada sugnaa waa natiijada insha allah hagaag bismillaah alxamdulilah hal maraan ismaqallo waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii tartanka ay maanta isku arkayeen 4B artist iyo 4C science laba fasal oo form 4 ah oo laba fasal oo kale stream duwan ah fasalka loo yaqaano form 4C science waxaa la weydiiyey 5 su'aalood marka loogu daro su-aashii u saxnayd oo annagu aanu ka qaladnay dibna laga saxay waxa ay ka jawaabeen 5toodii su'aalood oo la weydiiyeyba halkaa waxay ku leeyihiin 10 dhibcood fasalka loo yaqaano form 4B artist 5 su'aalood oo la weydiiyey 4 ka mid ah waxay uga jawaabeen si quman su-aashii shanaad ee mahmaahda ahayd ayaa garab martay saaxiibadoodna kama faa'iidaysan halkaa waxa ay ku saxeen 4 su'aalood waxayna ku leeyihiin 8 dhibcood labada fasalba si wacan ayay u dadaaleen waxay ka soo baxeen dhowr iyo 20 fasal sidaa daraaddeed labaduba waxay soo bandhigeen natiijo wanaagsan guusha caawa waxay ku raacday 4C science 4B artistna waxa ay kaalinta labaad ka galeen tartanka aqoonta sidoo kalena waxay xalay ku guulaysteen koobkii kubadda cagta kana waxay ka haystaan koobka labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi